maamul leh saddex madaxweyne laakiin aan lahayn xarun madaxtooyo dastuur qoran iyo ciidan ku filan inuu sugo ammaanka madaxda la doortay ayaa sanadkii 2012 lagaga dhawaaqay magaalada Taleex Khaatumo waxaa lagu dhidbay shirbeelada ay isugu yimaadeen dhowr boqol oo ergey oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa isaga yimid kuwaas oo u badnaa bulshada degta Soolbari Sanaag Bari iyo degmada Boohoodle waxa uu ahaa mid ka duwan maamuladii kale ee dalka ka jiray waxa uu lahaa saddex madaxweyne oo midba mar uu xilka haynayo si meerta sidoo kale waxa uu lahaa golo duqay golo wakiilo oo ka kooban 32 qof iyo golo wasiiro ujeedkiisu waxa uu ahaa in uu ka taliyo labadaasi gobol laakiin aragtidaasi waxay ahayd mid golo ka fuul ah marka loo eego caqabadihii ku hareereysna Puntland oo bariga ka kulaalaysay may ogolayn in maamul isku dhareeriya ay ku dhawaaqaan bulshada degta deegaankaas Somaliland oo inta ugu badan ka arrimisa labada gobol iyaduna raalli kama ahayn dhawaqii ka soo yeedhay shirka laakiin waxaa labadaasiba garan maray aragtidii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee fadhigeedu ahaa Muqdisho waxa ay ku dhiiba siisay aqoonsi aan kalxamaha dhaafin waxa soo buriyay oo ka daba yimi shuruudihii dhismaha maamul goboleedyada ee ku qoran dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya kaas oo dhigaya in laba gobol iyo bar wax ka yar aan loo samayn karin maamul goboleed bilowgii Khaatumo Somaliland waxa ay ka didsanay dadkii shirkaasi ka qayb galay gaar ahaan Cali Khaliif Galayd Allah u naxariistay oo ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya oo ka mid ahaa ergadii dhidibada u taagay Khaatumo ilaa sanadkii 2014 loo doortay madaxweynihii Khaatumo isagoo ka guuleystay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ahaa musharaxii kula tartamayay xilka madaxweynaha Khaatumo in muddaha ayuu u ololeynayay in maamulkiisu aqoonsi ka helo dawladihii tan iyo xilligaasi soo mariyay Soomaaliya hase yeeshee kuma uu guuleysan sanadkii 2017 madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo iyo madaxweynihii markaasi Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galayd ayaa habeennimadii 20 Oktoobar ee sanadkii 2017 waxay magaalada Caynaba ku kala saxeexdeen heshiis ka dhashay wadahadallo labada dhinac u socday muddo 2 sano ah kuwaas oo ka dhacay dalalka Itoobiya Imaaraadka Djibouti iyo magaalada Hargeysa nuqul ka mid ah warmurtiyeedka heshiiska la kala saxeexday waxa qodobadiisa ka mid ahaa in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madaxbannaanida Somaliland in dastuurka dib loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan guddi joogto ah arrintaasi loo saaro dhammaan qodobadaasi waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay xukuumaddii labaad ee kulmiye halkii kama ay qaadin heshiiskii ay gashay xukuumaddii ka horreysay walow u dhintay Cali Khaliif oo dhanka Khaatumo u saxeexay heshiiska haddana waxaa nool xubnihii kale ee markaasi joogay dadka falanqeeya siyaasadda Somaliland waxay qabaan in dib u curasho dambe uu sameeyay maamulka Khaatumo taas oo dhabarjab iyo kala qaybsanaan hor leh ku noqonaysa Somaliland oo markii horeba madi ku ahayd go'aansataageeda waxaana loo badinayaa shirka laascaanood ku socda natiijadiisu in ay ku dambaynayso dib u yeegleelidda maamulka Khaatumo